deegaanka ama deegaanada kala fog ee dalkan mudane madaxweyne waxaan halkan mar kale uga hambalyeynayaa raggii iyo dumarkii suurtageliyey maanta in xafladan halkan ka soo wada qayb galno annagoo ummadda Soomaaliyeed uga diraynaa hambalyadii tilmaamaysay midnimadii ciidada Soomaaliyeed halkan uga dirayno waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo ku soo dhaweynaya madaxweynaha dalka madaxweyne soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre ku-xigeenkiisa golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee sharafta leh taliyaha ciidanka qalabka sida ee xoogga taliya ku-xigeenadiisa kooxda hobalada horseed saraakiisha dableyda iyo alflayaasha iyo qoysaska ciidamada qalabka sida diblomaasiyiinta dadka aan saaxiibaha nahay oo halka nala jooga maanta iyo beesha saxaafadda waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed sanad guradoodii 57 ay ka soo wareegtay aasaaska la aasay 1960kii runtii wax yar yaan ka leeyahay bacda maala laga hadlay arrintaas waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxbaan soo qortay bacda maa ay kooxdu qalbigayga taabteen waxaan rabaa anna qalbigayga inaan idinkala hadlo oo aan warqad waxba ka akhrin xaqiiqdii ciidamada qalabka sida oo anigu aan u ahay taliyahooda guud ummadda Soomaaliyeed waxay nagu ammaantay oo ammaano noogu dhibatay inaan soo celinno ammaankii iyo nabadgelyadii dalka guud ahaan waxaan ognahay aasaaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga soo bilaabo 60kii ilaa 91dii heerarkii iyo marxaladihii kala duwanaa uu soo maray oo xitaa sida generaal Jumcaale uu sheegay inaan anagu wax caawinaynay oo aan runtii diraynay peacekeeping aan caalamka u diraynay ay noo dhammaayeen qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haddii noqoto ciidamada cirka badda iyo dhulka runtiina adduunka aan ka tilmaamayn waxaan soo gaarnay hadda dad waalaheena oo amisom inay gacanna siinayaan oo nagu kala dhex jiraan oo ay ku dadaalayaan una dhimanayaan sidii qaarnimadeennii iyo sharafkeennii aan ku soo ceshan lahayn ciidamadeennina aan dib ugu dhisan lahayn waa ku mahadsan yihiin amisom iyo beesha caalamka guud ahaan oo mar walbana garab taagnayd waxaan rabaa inaan laba arrimood halkan ka sheego oo muhiim ah waxaan hadda aan joognaa oo dawladdan sida loo doortay bishii February 8deedii waxaan maraynaa hadda 2 bilood iyo 4 casho labadaas bilood waxa ilaahay nagu guuleeyay inaan dawlad dhameystiran aan maanta halkan aan idinkaga sheegayno inay jirto oo shaqeynaysa inay igu qaadatay aniga 15 casho inaan ra'iisul wasaare magacaabo isagana ra'iisul wasaaraha ay ku qaadatay 21 casho usbuuc ka horna inaan magacaabnay ciidamadii qalabka sida guud ahaan taasoo ka tarjumaysa isbeddelka dhabta ah oo shacabka Soomaaliyeed ee laga rabaa waxaan ognahay isbeddelkaasi waxa ugu horeeya inaan keenno amni waxa ummaddan ay naga sugayso waxay tahay inaan keenno magaaladan Muqdisho oo 3 milyan degan tahay
iyo guud ahaan inta qolooyinka horarka ah oo nabadiidka ah ay haystaan inaan kala wareegno muddo yar gudaheeda ummadda soomaaliyeed intaas yay naga dhowr sugaysaa ay naga sugaysaa waxaan aaminsanahay inaan gaari karno maxaa yeelay waxaan leenahay khibraddii loo baahnaa sidaad og tihiin raggay garab taagana hadda waxaan ka soo wada shaqaynay waktigii xilligii kumeel gaarka ahaa oo qolada nabadiidka ahaa ay haysteen xamar 70% meesha keliya aan haysanay ay ahayd dhowr xaafadood taasi waxay keentay muddo 6 bilood gudaheeda ah inaan ka saarno magaalada muqdisho sababtii iyo methodkii iyo qaabkii aan uga saarnay yaan hadda isticmaalayna annagoon waxba ka bedelin qaabkaasna waxaa ugu horeeya aan idiin sheegayaa ciidanku wuxuu u baahan yahay hoggaankana anaa ugu horeeya aniga waxa aan u sheego ciidamada qalabka sida iyo dadka sidaan u xusho yay ku xiran tahay horumarka iyo amniga aan keenayno magaalada muqdisho aan ka keenayno waxaana laga rabaa haddaan annaga nahay marka hoggaankii haddaan nahay waxaana laga rabaa inaan astaan noqonno astaantu waxay tahay kow waa ka hadalnaa annagu musuqmaasuq inaan ka fogna ciidan iyo musuqmaasuqna isuma keenno astaan inaan u nahay wadannimo iyo soomaalinimo inaan astaan u nahay astaan inaan u nahay inaan sharciga ilaalinayno astaan inaan u nahay in aan runtii ummadda kicinayno oo aan ku abaabulayno inayna garab istaagaan ciidanku askarigu iyo sarkaalka markuu arko taliyihiisii siduu u dhaqmaayo u dhaqmaa haddii taliyaha uu xun yahay askarigu ma fiicnaan karo marka laga bilaabo aniga waxaan u taaganahay runtii taliyayaashan ay u taagan yihiin inaan ciidanka qaranka soomaaliyeed aan dhisno oo aan ku celino siduu ahaan jiray caalamkuna aan u muujino inaan soo celin karno ciidamadii cirka ciidamadii dhulka oo dhammaystiran iyo ciidankii badda oo waardiyeeya xeebaheenna hadduu ilaah yidhaahdo leadershipku ama hoggaanku waa bilowga ciidanka hadduu hoggaanku xun yahay ciidan ma wanaagsanaan karo wax yar yaan rabaa halkan inaan ka muujiyo maanta halkan waxay la taagan biixdeeda jenaraal jimcaale ay la taagan oo ahaa generaalkii qabtay magaalada muqdisho iyo meesha aan maanta fadhino waxaan rabaa in aan ku soo daro oo aan runtii aan u hambalyeeno oo aan muujino inay yihiin heroes ama halyeey yihiin raggii isaga la socday haddii aad raalli ka tihiin waxaan rabaa inaan u yeero raggii hoggaanada waagii nala shaqaynayay abaanduulaha aawe caanood kaalay sanay ma joogaan qaafow sanay u yeer janaalada kul u yeer janaal cagay okay ibraahim yarow ma nala joogaa beedha buu jiraa janaal sanay ma ku jiraa meesha sanay yaaw general indhacad aawe indhacad ma joogo yuusuf indhacad waa ku jira dagaalka salaadii waadi okay yaan ilowsanahay marka taliyaashii ciidamada agaga wixii cabdiqaadir waxaan rabaa marka nin nagu dheer oo runtii qayb weyn ka ahaa xoreynta magaaladan jenaraal mugisha amisom
Uganda People Defense Force mujuga General Muhanga raggan aad arkaysaan waa ragga halkan aan ku fadhino iyo ciidamadoodii runtii u dhintay una dhaawacmay inay xoreeyaan magaalada muqdisho taasi waxay muujinaysaa marka hoggaanka hadduu fiican yahay taliyaashu hadday fiican yihiin askartuna waa fiicnaanayaan taliyaashan halkan maanta jooga habeen iyo maalin waa wada hadlaynay waxayna u soo dhinteen oo u soo halgameen in dalkan uu xor noqdo allah ha u naxariisto dad baa naga dhintay inaan magacooda sheegaan doonayaa oo halkan aan nala joogin maanta laakiin mudan inaan magacooda sheegno bacdama ay yihiin halyeeyo heroes ay yihiin oo insha allah hadduu ilah yidhaahdana aan taalo u dhiseenno insha allah waxaa naga dhintay dad badan laakiin dadkii taliyaasha ahaa abaandulihii dhaga badan allah ha u naxariisto waana laga dilay waxaa halkan ka maqan oo nala joogin generaal goobaale oo isna nalaga dilay allah ha u naxariisto waxaa oo kale nalaga dilay oo qiimo lahaa generaal gordon allah ha u naxariisto waxaa runtii cabdullahi macal nuur aawe ahlu sunna isagaa maamulaya markaas waagaas noo imo halkan أو عبد القادر مع النور raggaani waa raggii hoggaanka joogay oo runtii u soo dhintay xornimada iyo la dagaalanka nabaddiidka oo runtii halkan u yimid inay noo diidaan nabad iyo dowladnimo inay noo diidaan iyagoo u shaqeeya una adeegaya wada shisheeye xaqiiqdu waxa weeye raggan maanta aad arkaysaan waa raggii nala soo halgamay oo nala soo dhintay dad badanna haddee oo askar ahaana waa ku geeriyoodeen ha ahaadaan amisom ama ha ahaadaan ciidan soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa marka kama soo harto leadership wax la yidhaahdo haddana waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo in aan magacaawno taliyaal abaabulaha ciidanka hadday noqoto tababarkooda iyo doctriinkooda inay ciidanka baraan waxa la yidhahdo wadannimada oo ay siiyaan sabab iyo mabda ay ku dhintaan ciidanku waa inuu helo taliyo u maqlo taliyahaas u maqlana khasbiyan waxay tahay taliyo uu ixtiraamayo uu ku ixtiraamayo integrityga qofka siduu u sharfan yahay siduu u ilaaliyo sharciga sida uu nidaamku u ilaaliyo iyo ku sharfaayo iyo soomaalinimadiisa iyo daacadnimadiisa askarigu wuxuu ku khasban yahay marka inuu raaco kuna shaqeeyo taliyaha rabitaankiisa iyo waxa uu doonayo saas darteed meel kale ka raadin mayno arrintii shalay aan samaynay oon magaaladan uga xoreynay shabaab yaan dalka uga xoreynaynaa annagoo helnay ciidamo karti iyo taya leh hadduu ilaah yidhaahdo jenaraal garabey ma fadhiyaa maasha allah soo halka soo istaag noogu xigta waxay tahay markaad ciidanka aad hesho taliye ama commander markaad hesho markaad leadershipka aad hesho ciidankiisa waxaa lagaa rabaa waxa xiga daryeelka ciidanka daryeelka ciidanku hadduusan daryeel lahayn haddii uusan mushahar qaadan haddii uusan raashin lahayn
haddii uusan caafimaadkiisii aan meel la saarin hadduu dhintana carruurtiisii reerkiisa aan laga warqabin ninkaasi ciidanka ama gabadhaas ciidanka ah ma xukumi kartid discibliinna ma yeelan karo sidaas darteed waxaa naga go'an sidii waagii aan yeelnoo kale in ciidanka aan u dhammaystirno waxay u baahan yihiin ay kow ka tahay mushaaharadooda oo joogto ah sidaad ogtihiin anigu hadda 2 bilood baan joogaa 2 biloodna waa siinay insha allah waxaan rajaynaynaa inta soo socotana inaan wadno mushaharsiintooda waxaan intaas dheer lacag laga goon jiray muddo 1 sano iyo bar ah waa ugu soo celinay oo $50 waxay ahayd $100 in la siiyo 50 baa laga jaray muddo 1 sano iyo bar ah laga bilaabo bishaan waa ugu soo celinay boqolkooda oo dhan iyo qaadan doona insha allah hadduu la yiraahdo waxaa kale oo muhiim ah oo loo baahan yahay markii aan daryeelkii iyo agabkii ciidanka aan siino oo discipliinkii loo baahnaa ay keenaan waxay ku khasban yihiin sidii aan ku naqaanay ciidanka Soomaaliyeed oo geesiyaasha ah inay dagaalka galaan inay ka adkaadaan shabaab oo ay ka xoreeyaan dalkan ay ku celiyaan meesha ay ka yimaadeen waxa kale oo muhiim ah abaabul sidaad ogtihiin ciidanku kaligiis maaha waxa dhimanaya waxaa la rabaa dawladda ay kow ka tahay iyo shacabka Soomaaliyeed in ciidanku uu garab taagan yahay oo aan u hayseeno oo aan u gabyeenno oo aan caanaha iyo biyaha iyo raashinka aan ka daba wadno ciidan aan lahayn shacab ciidankaasi ma guulaysan karo ciidanku wuxuu ku guulaysan karaa markuu uu og yahay inuu haysto taageerada shacabkiisa iyo dawladdiisa annagu haddaan qaybteena la imaanno marka oo dhankii dawladnimada ah oo dhammaystiraysa waxa la wuxuu ciidanku u baahan yahay shacabkana ay garab istaagaan waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno hadduu ilaahay yiraahdo waxaan noogu xigi doonaa waxa la yiraahdo maamul oo ah meesha aan qabanno inaan dib uga soo noqon meesha aan qabanno inaan maamul u sameeyno maamulkaasna uu ka shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka waalaha ah oo wada degan oo ay shabaabka isku direen waxaan ognahay shabaab waxay ku mashquulsan yihiin maalin walbaba inay isku diraan qabiilada waana cilad jirta way marka waxaan rabnaa inaan sameeyno maamul runtii u diyaarsan mar alla markii aan meesha qabanno inaan laga tagin uu diyaariyo waxa la yiraahdo dib u heshiisiin dadka walaalaha ah oo wada jooga inuu halkaas ku heshiisiyo waxa kale oo muhiim ah dib u heshiisiin kale oo ayaan dhaweyd 10 bari ka hor markii aan ciidamada magacawnay 7 bari ka hor aan afis u fidiyay shabaab iyo nabadiidkaas aan u fidin afiskaas oo aan niri waxaan doonaynaa inaad dib ugu soo noqotaan dadkiinu muddo 60 casho ah 2 bilooda afiskaasi waa naga dhab waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno shabaab xitaa madaxdooda kuwa ku khasban inay la joogaan kuwa inkaarta qaba oo dibadaha nooga yimid oo doonaya dalkan iyo dadkiisa inay wax yeelayaan ama ay dhibaateeyaan haddana mar labaad waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhalinyarada shabaab oo la khalday oo la marin habaabiyey inay ka soo noqdaan oo noo soo noqdaan annagu waalahood baan nahay waa ilmaheenna waxaan ballan qaadayna haddii noo yimaadaan sidii hadda ka horba aan yeelnay waxaan ballan qaadaynaa inaan meel dejinno waxaan ballan qaadaynaa inaan mushaahar siino waxaan ballan qaadaynaa in aan waxbarasho iyo farsamo aan siino si ay ugu noolaadaan dadka leadershipka u ah shabaab waxaan leenahay waxaad burburinaysaan ma aha dawlad Soomaaliyeed ma burburin kartaan dawladdu waxay haystaan taageero caalami ay haysataa ciidan waxaan haysanaa aad u fara badan laakiin waxaad burburinaysaan runtii rajadii ummadda Soomaaliyeed waxaad burburinaysaan hantidii Soomaaliyeed waxaad dilaysaan walaalihiin ee dawlad ma qabsan kartaan waxaan idiin sheegaynaa leadershipka dadka madaxda ah shabaab 10 sano dagaalayseen annagu diyaar waxaan u nahay haddaan nahay dawladdii haddaan nahay shacabkii Soomaaliyeed haddii aad nabad qaadan weydaan in meel alla meesha joogtaan aan idinku imaano hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idinka dalbanaynaa ummadda halaynina hantida ha burburinina noo imaada aan wada xaajoonno hubkaan iska dhiga dalkaanna aan horumarsanno waxaad ogtihiin inaan iclaamiyey dagaal ayaan dhaweyd
dagaal anuu ma iclaamine waxaan dadka u sheegay in dalku uu ku jiro xaalad dagaal ujeeddadeedana waxay ahayd dadka inaan hurdada ka kiciyo shacabka Soomaaliyeed inaan abaabulno ciidanka Soomaaliyeed inay ogaadaan shabaab ma aha kaliya inay soo weeraraan dagaalku waa inuu noqdo laba dhinac inuu noqdo inuusan noqon hal geesood kaliya oo maalin walba ay qarxinayaan maalin walba ay soo weerarayaan ee inaan u diyaar garowno waxaan idinka codsanayaa ciidamada qalabka sida iyo AMISOM inaan u diyaar garowno inaan ka adkaano shabaab waana ka adkaan karnaa ilaahay idinkiis waa ka adkaan karnaa dagaal kaligiis iyo nabadgelyo kaligeed ummad iyo dal laguma dhisi karo annagu waxaa naga go'an inaan dhaqaalaha kobcino ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله waxaan doonaynaa inaan dhaqaalaha kobcino waxaan kobcin karnaa dhaqaalaha anagoo dagaal ku jira ogaada qorshaheedana waa haynaa waxaan raadinaynaa investment ama maalgelin shisheeyaan raadinaynaa dagaal kaliya oo aan la dagaalno aan nabadgelyo keenno dalkan kuma dhismaayo annagoo dagaaleenna yaan gacanna waxaan ku qabanaynaa inaan dhaqaalaha kobcino oo dhalinyarada Soomaaliyeed aan shaqo u abuurno waana yeeli karnaa haddii shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo AMISOM iyo dawladda anigu aan madaxda u ahay haddaan hal dhinac maaragtay aan ka soo wada jeesano waxaan casumaynaa ama aan raadinaynaa maalgashi shisheeyaan raadinaynaa wayna imaanayaan halkan runtii maxaa yeelay meelo badan oo waxaa jira ay maal gashan karaan si aan u abuurno shaqo abuur aan u abuurno waxaa ugu horeysa magaalada Muqdisho oo aan doonayno inaan nabad ka dhigno kadibna gobolada dalka aan ka abuurno shaqooyin iyaguna naftigooda haddii noqoto Jubbaland haddii noqoto Koonfur Galbeed haddii noqoto Hirshabeelle haddii noqoto maxaan ku raadhaa Puntland haddii noqoto even Somaliland waa dad waalaheena ah way u baahan yihiin shaqooyin iyo shaqo abuur waa u baahan yihiin iyo galmudugba arrintaasna waxay ku imaanaysaa markii dawladdu ay tahay dawlad nadiif ah si fiican ii dhageysta dawlad nadiif markay tahay heestii hadda laga qaadayo meesha in musuqmaasuq aan la dagaalno caalamku wuxuu wax kugu darsan karaa markii aad tahay musuqmaasuq free markii aad tahay qof nadiif ah markii aad tahay dawlad dimuqraadiyad ah oo sharciga ku shaqeysa oo la dacweysan karo iyadana wax dacweysan karta macnaheedu waxay tahay annagu madaxdii qaranka annagoo ah waxaan la dagaalaynaa musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cadowga dawladnimada Soomaaliyeed way wuuna ahaa 16 sano iyo wixii ka horreeyay waa ahaa sidaas darteed annagoo ka cibra qaadanayna oo khibradii hore qaadanayna oo wax ka baranayna musuqmaasuqa ma shaqeyn karo dawladna lagu dhisi karo sidaas darteed waxaa naga go'an oo ilaahay hortiisa ah dawladdan inuusan ka shaqeynin qof tuug ah dawladdan inay noqoto dawlad nadiif ah dawladdan ay noqoto dawlad bacdamaa haddaan caalamka uga jirno dawladda ugu xun adduunka in aan xooggeena isugu geyno inaan noqono dawlad fiican oo caalamka ka magacaaban inaan noqono oo sharaf iyo karaamaba leh waxayna ku imaan kartaa meesha ugu sarreysa waa aniga iyo ra'iisul wasaaraha haddaa aragtaan qof wax hadaya annagaa ka mas-uula laakiin noo soo sheega haddaad qarisaan annagu meel walba ma taagin haddaad noo soo sheegtaan oo aan u dayno qofkaas inuu ummadda dhibaateeyo annagaa wax la ogaada laakiin waxaan idiin sheegaynaa dawladdan kama shaqeynayo qof jeeb kale oo qof walaalkiisa gacantiisa gelinaya kama shaqeyn karo waa nugu ballan waxaa kale oo aan rabnaa in aan la dagaalno fakriga wax la yiraahdo ummadeenu waa rafaadaysan tahay dhibaato dhaqaalaha haysta shaqo la'aan iyo waliba dhalinyarada haysata waxaa ballan nagu ah in aan kobcino dhaqaalaha sidaan idiin sheegay oo aan la dagaalno fakriga dalkeenu waa dal qani ah wax walba waa haysanaa laakiin wax walba koow waxa ka ah amniga ciidamadu inay nagala shaqeeyaan amniga in maxaan ku iraahdaa AMISOM iyo dawladaha shisheeye oo nala jooga oo gacanta nagu siinaya inaan la shaqeyno fakriga waa cadowga Soomaaliyeed sida uu musuqmaasuqa cadow u yahay argagixisaduna ay cadow tahay qof gaajahayso ma ilaalin karo sharciga sidaas darteed waa inaan la wada dagaalno dalkeenu waa qanisan sheegay haddii khayraadkiisa aan u dhacno oo si wanaagsan oo nadiif loo maamulo waxaan ku kalsoonahay in
qof Soomaaliyeed uusan habeen gaajo ku seexanayn annagana waa naga go'anta hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kala naga go'an oo ugu dambeena dawladdan hadda anigu aan madaxda ka ahay waxay ku timid election iyo dimuqraadiyad ay ku timid inaan dimuqraadiyada xoojino maxaa yeelay waa soo aragnay qaababkii dawladeed oo dalkan ka soo jiri jiray ilaa 60 ilaa hadda dawladdan iyo wixii ka dambeeyay iyo wixii ka horeeyayba aan aragnay waxa weeye Soomaaliya waxa u bilowday dimuqraadiyad qabiilka iyo 4.5 ka waa ka tageynaa waxaan u gudbeynaa qaab axzaabaan u gudbeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaana ballan qaadayaa election kan ku xiga qof walba Soomaaliyeed inuu codkiisa dhiibto si adduunka aan ula tartanno hadduu Ilaahay yiraahdo caalamku waa nala shaqeynayaan markay arkaan inaan u dhaqmayno sida u dhaqmayaan caalamku waa nala shaqeynayaan haddii caalamku nala shaqeeyaan waxaan aaminsanahay dadkeena Soomaaliyeed oo talented ka ah maskaxda badan ganacsatada active ka ah oo runtii intuu dalka burburayay soo shaqeynaysay dadka qurbaha jooga oo runtii wax bartay iyaga naftigooda khibradahooda la imaan doona iyo khibradihii aan ka helnay burburka waxayna gaarsiin kartaa inaan Afrikada kale aan ka hormarno waana goolka aan leenahay 4 sano kama hormari karno laakiin waxaan bilaabaynaa 4 sano soo socota in laga tilmaamo Afrika oo nalooga tilmaamo inaan nahay dad maxaan ku yiraahdaa musuqmaasuq la dagaala inaan nahay dad dawladnimadoodu ay caddahay inaan noqono dad dimuqraadiyad leh inaan nahay taasna waxay ka bilaabanaysaa waxa weeye idinka annaga kaliya ma aha oo dawladda ah qof walba oo Soomaaliyeed waajib ka saaran marka waxaan idinka codsanaynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan waxaa jiri doona dad mar walbaba dhibaato ku ah dawladnimada Soomaaliyeed oo raba sidaan inay Soomaaliya ku ahaadaan oo nagu kalifaan ama nagu khasbaan in caalamka maalin walba barino oo ay nagu kalifaan in ciidamada AMISOM ay nala joogaan nalama joogaan ciidamada AMISOM way tagayaan muddo yar baan u hartay waxaana kaliya aan sameyn karnaa waxay tahay annagu inaan isku tashanno annagu inaan isku kalsoonaanno annaga aan ugu horeyno oo dawladdii ahna aan idin noqonno astaantii iyo tusaalihii wax looga dayanayay walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga dalkan waa xoroobayaa insha Allah maxaa yeelay saan sheegay wax walba waxay ka bilowdaan leadership haddii qof walba oo leader uu maxaan ku yiraahdaa raaco madaxdiisa askartuna ay raacaan taliyaashooda waxaan aaminsanahay 100% inaan nabadgelyada dalkan ku soo celinayno walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allah sanadkiisa waxaan rajaynaynaa in meelo badan aan dalka ka horeyno shabaab oo baqdin ahna in meel ay ku gabadaan ama ay meel ay gabaad ka helaan inay waayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa halkan waxaan la joogta gabar ku dhaawacantay soo jid soo kaxe adeer magaca adeer faizo adeer dalka waa u dhimatay waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii caafimaadkaaga ah inay dawladdu wax kala qabato ma garatay gabadhan halii keeno ya way adeer ya Allah ku caafiyo adeer way waa mahadsantahay